Waa qaybtii soddonaad qisooyinka nebiyada. Waxaan qaybta hore uga soo sheekaynay nebiga sallallahu calayhi wasallam isagoo dhalinyaro ah ayuu bilaabay shaqada ganacsiga. Sidaan hore usoo sheegnay, reer Quraysh waxay caabudi jireen sanamyada iyagoo ku dul wareega ama ku dul dawaafa dhagaxaanta iyo dhirta. Hase ahaatee, waxaa jiray 4 nin oo ka tirsan reer Quraysh oo ka dhex baxay oo ay u cuntami weyday sanamyada Ilaahay lala wadaajinayo, iyagoo iclaamiyey inaanay ahayn diinta ay haystaan diintii Nebi Ibraahim. Waxayna kala yihiin Sayid ibnu Camar ibnu Nufayl, Cismaan ibnu Xuwayrib, Waraqa ibnu Nowfal iyo Cabdullaahi ibnu Jaxsh. Waxayna qireen in Ilaahay keligii yahay. Waxayna isugu yimaadeen shir iyagoo go'aan ku gaaray inaanan loo fadhin reer Quraysh waxa ay caabudayaan, kadibna midba meel buu ka baadi doonay diin qancisa. Waraqa ibnu Nowfal wuxuu qaatay diinta Nasaarada. Markii diinta Islaamka soo gaadhayna wuu muslimay isagoo da'diisu ay weyn tahay oo indho beelay. Sayid ibnu Camar wuxuu cadaawad u muujiyey reer Quraysh iyo waxay Eebbe la wadaajinayeen, wuxuuna ku yidhi qoomkiisii, waan ka gaaloobay sanamyadiina, waxaanan rumeeyey Ilaahay oo keliya. Manuusan garanaynin sida uu Eebbe u caabudo. Wuxuu diidi jiray inuu cuno cunto aan bisinka loo qaban. Haddii uu arko nin dilaya gabadhii uu dhalay, wuu kala doodi jiray si uu u badbaadiyo ruuxaas. Maalintii dambe ayuu ka baxay magaalada isagoo ku wajahan dhulka Shaam si uu diin u raadsado. Hase ahaatee, markuu jidka marayay ayuu la kulmay nin baadari ah. Kadibna wuxuu uga warramay ujeeddadiisa. Baadarigii wuxuu ku yidhi, ku noqo magaaladaadii, waa xilli uu soo bixi doono nebi, kana soo bixi doono mandaqadii aad ka timide. Markuu jidka marayay ayaa la dilay Sayid, wuxuuna ku ducaystay in Ilaahay u hanuuniyo wiilkiisa Saciid ibnu Subayr. Wiilkiisa wuxuu noqday Muslim, wuxuuna ka mid yahay saxaabadii rasuulka ugu bishaareeyey jannada. Maadaama ay Cumar ibnulkhadaab iyo Saciid ibnu Sayid isxigaan, waxay u tageen rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxayna weydiiyeen inay u dembi dhaaf Eebbe weydiin karaan Saciid aabbihii oo ah Sayid ibnu Camar. Nebigana wuxuu ugu jawaabay in Ilaahay uu soo bixin doono Sayid ibnu Camar maalinta qiyaame keligii isagoo ummad ah. Guurkii rasuulka iyo Khadiija. Magaalada Maka waxaa ku nooleed gabadh haweena oo nasab iyo sharaf ku lahayd dhexdooda, sidoo kale waxay lahayd hanti kana shaqayn jirtay ganacsiga, waana hooyadeen Khadiija ibnu Quwaylid. Maadaama ay maalqabeen ahayd, waxay u dirsan jirtay ganacsiga dhulka Shaam si ay xoolaha uga baayac mushtarayso. Maalintii dambe ayaa wiilkii u shaqayn jiray ee Maysara ayaa uga warramay Muxamed inuu yahay aamin, looguna jecel badan yahay magaalada Maka. Maysara wuxuu u tegay Nebi Maxamed, wuxuuna uga warramay arrinta ganacsiga ay Khadiija u soo bandhigtay, wuuna ka ajiibay. Nebigu wuxuu la wareegay xoolihii ku jihaysnaa dhulka Shaam, waxaana raacay Maysara. Jidka markay marayeen ayuu Maysara arkay arrin ka yaabisay. Wuxuu arkay in Muxamed dushiisa ay haraynayso daruuro iyada oo wakhtigu yahay kulayl. Markii u dhowaadeen dhulka Shaam ayuu nebiga fadhiistay geed hoostii. Geedkana waxaa ku barbar yaallay dayr lagu cibaadaysto, waxaana joogay nin raahib ah. Kadibna wuu soo baxay isagoo ku dhegagsan ninka fadhiya geedka. Si kastaba ha ahaatee, raahibkii ayaa la hadlay Maysara oo ku yidhi, ninkaas ma garanaysaa? Wuxuuna Maysara u sheegay inuu yahay Muxamed ibnu Cabdullaahi. Raahibkii inta uu dhaartay ayuu yidhi, ruux kumuusan degin geedkaas, hadduuse ku dego waa nebi ka mid ah nebiyada. Isla markii ay soo noqdeen oo ganacsigii uu midho dhalay ayuu Maysara uga warramay Khadiija inuu ku arkay Muxamed arrimo la yaab leh, sidoo kalena wuxuu u sheegay inuu fadhiistay geedkii nebiyada. Markay Khadiija maqashay ayaa qalbigeedii cajabgeliyey nebiga, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, waxayna u soo bandhigatay guur. Nebiguna sidoo kale wuxuu u bandhigay adeeradii, waanay ka aqbaleen soona dhoweeyeen iyaga oo mabsuudsan. Nebiga waxaa raacay adeerkii Xamse ibnu Cabdilmudalib, waxayna u tageen Khadiija aabbaheed Quwaylid si ay uga mehersadaan. Quwaylidna arrinkii waa la dhacay oo waa soo dhoweeyey, waana la isu meheriyey, sidaas ayayna ku aqalgaleen. Meherkii lagu meheriyey Khadiija wuxuu ahaa 20 halaad oo geela. Nebiga iyo Khadiija waxay ku noolaayeen nolol macaan oo ku dhisan diinta Islaamka iyo akhlaaqdii rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Khadiija waxay u dhashay nebiga dhammaan ubadkiisa marka laga reebo Ibraahim oo u dhashay Maariyatul Qibdiya. Ubadkii rasuulka waxay kala ahaayeen Zaynab, Ummu Kalthuum, Ruqiya, Faadima, Qaasim, Cabdullaahi iyo Ibraahim.
qaybtan halkaa ha inoo joogto soonkii acmaasha wanaagsanaa ee aan soo sameynay intaan ku guda jirnay bisha Ramadaan. Allah ha inaga wada aqbalo. La wadaag walaalaha kale si ay uga faa'iidaystaan oo inoo sheer gareeya. Ramadaan mubaarak.